halkaad nagala socotaan waa raadiyo Buurama Soomaali Canadian TV. waxaanu waraysi kooban la yeelanay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada NSTA kaasoo gebi ahaana ka warbixiyey xaaladda laascaanood ee wakhtigan. sargaalkan ayaa lagu magacaabaa maxamed cabdi weyd carab. maxamed cabdi weyd waa sargaal sare oo hore uga soo shaqeeyey dowladdii Soomaaliyeed. waxaa waraysigan khadka telefoonka ku qaaday agaasimaha TV-ga raadiyo Buurama Soomaali Canadian TV Xaamud Cilmi. aanu u dhignaa hadalkiisu sida tan. محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadka Soomaaliya barnaamijka difaaco ka dhageysta raadiyo Buurame kana daawanaya Soomaali Canadian TV. barnaamijka difaaco walaaliya maanta waxaan kusoo qaadanaynaa xaaladda laascaanood oo maalmahan deganay. haddaba si aan u kuul galno xaaladda laascaanood, waxaanu maanta oo ay bishu tahay 11 Maarch sanadkuna uu yahay 2023. aanu toos khadka telefoonka kula hadalnay magaalada laascaanood in ka mid ah saraakiishii dowladdii federaalka Soomaaliya ee NST ahna duqeyda magaalada laascaanood oo maanta barnaamijka noogu ah marti waa carab maxamed cabdi oo lagu naanayso weyd. haddaba ummadda barnaamijka dhegaysanaysa waxaanu weydiinaynaa, bal waxaad nooga warantaa xaaladda hadda aad ku sugan tihiin idinkoo idin tahay 7 fiidnimo waqti ku dhow, kuna soo dhowo barnaamijka difaaco ee raadiyo Buurama Soomaali Canadian TV. waa anigoo Xaamud Cali Cilmiya. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدن لاسعانود وبحين رقوبان كسيو راديو كان كسيو بورما لاسعانود أرنتيدو شنتي عشان لصور ضعفي دقال كي هريو قصدي مسعونين سومالان بناكي كتشوكتي كوتش عدمي اللي راهي تشوكتي ويسوق لي كرويدي hakadka 5 casho dagaal la'aantana awal bayada laascaanood weerar ku ahayd ana weerar kuma aan ahayn. marka hakadku xaqoodu ka yimi way diyaar garoobayaan oo inta ciidamada iyo way habqankoodu waa soo socdaa. ciidamada inta keenayaan ilaa asluubtii bay keeneen, ciidankii baday keeneen, turbataayadii bay keeneen, milishigeeda iyo ciidanka badun baa u harsan wax ciidan oo ay sheegato. booliiskana horey bay u keeneen kuwii magaalada joogay. marka weerarkoodii markay waxba ku qaadi waayeen baa hakad ay geliyeen. diyaargarow baa xaggooda ka socda, xaggayagana diyaargarow waa diyaargarownay. insha allah sidii aanu iskaga kicin lahayn baanu falgad qadanaynaa, waana iska kicinaynaa mar hadday abis diideen. waa qoladii Itoobiyaanka ayd baa u dambeysay. cid kasta oo muslina iyo cid kasta oo dee gaalaaba waa diideen ay tala bixintoodii. marka telefoon bay soo galay. marka arrinta laascaanood hadda halkaasay maraysaa. wixii dambe warbixinana raadiyaha waa 13 sano aan joogay. marba wixii xog aan hayo raadiyoga waa soo sheegaya Buurame haddii Ilaahay ka dhigo. hadda intaasaan kusoo koobaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. anigoo ah isku xidhaha barnaamijka raadiyo Buurama Soomaali Canadian TV.